qisadaydu waxay ka bilaabataa waalidkay labadooduba waxay ahaayeen kuwo balwad leh waxayna isticmaali jireen daroogada iyo khamriga. waalidiintay waxay ku noolaayeen guri yar waxayna wada joogeen guriga muddo dhan 2 ilaa 3 sano waliba ayagoon isqabin oo aanan isguursan. kadib markii ay intaa wada joogeen waa ay isguursadeen. hooyaday waxay yeelatay uurkeyga. run ahaantii hooyaday waxay rumaysneed inaan ahay barako ilaah, sidaa daraadeed hooyaday waxay gabi ahaanba joojisay daroogada iyo khamriga maadaama ay uurkeyga yeelatay. hooyaday waxay heshay shaqo waxayna ka shaqaynaysay shaqo aad u adag waliba ayadoo uur leh si ay u maareyso nolosha qoyskeeda. hooyaday bilooyin ka hor markii ay joojisay khamrigii iyo daroogadii, aabahayna weli ma uusan joojin balwadii oo weli waa uu sii waday isticmaalka khamriga iyo daroogada. hooyaday iyo aabahay markasta way murmi jireen. aabahay ma bixin jirin wax biil ah, sidoo kale aabahay ma uusan haysan wax shaqo ah, mana uusan ka tagin caadooyinkii xumaa. laakiin si kastaba ha noqotee hooyaday iyo aabahay way wada joogeen. markaa kadib hooyaday aniga ayay i dhashay. aabahay wuu seegay isticmaalka daroogada wuxuuna hooyaday oo isbitaalka joogtay ku wargeliyay inuu lumiyay gurigiisa maxaa yeelay si fiican uma bixin jirin wax ijaar ah bilooyinkii u dambeeyay. hooyaday iyo aabahay way kala maqnaayeen laakiin weli sharci ahaan way isqabeen ilaa aan la gaadhin 2009kii. markaa kadib aabahay xabsi ayuu galay wuxuuna sameeyay dembi gacan ka hadal ah. sidaa awgeed aabahay waa la xiray waxaana lagu xukumay 10 sano oo xarig ah. kadib markii uu 5 sano dhamaystay waa la soo daayay oo waa la cafiyay. sidaa daraadeed aniguna waxaan soo koray aabba la'aan muddo 5 sano ah. sidoo kale waxaan ku dhawaa fasalka 5aad markii aabahay loo soo daayay dabeecad wanaag awgii. kadib aabahay wuxuu isku dayay inuu isoo xiriiriyo oo uu iga soo waco telefoonka. anigana waxaan bilaabay inaan aado gurigiisa. dhowr maalmood kadib markii uu xabsiga ka soo baxay, aabahay mar kale ayuu dib u guursaday. anigu ma aanan jeclaysan midaas, mana jeclayn inaan ag joogo gurigiisa. aabahay weli wuu qabay hooyaday laakiin uma imaan jirin oo kaliya wuxuu ku ekaa xaaskiisa cusub. markaa kadib aabahay iyo xaaskiisa cusub ayaa waxaa ka dhex bilowday dagaal. way murmeen aad iyo aad ay labadooduba isu aflagaadeeyeen waxayna is yiraahdeen hadal xunxun. sidoo kale xaaskiisa cusub waxay xitaa isku dayday inay aniga iga qabato shaarka kadibna ay banaanka ii saarto weliba xilligaa oo ahayd habeennimo. kadib markii ay wada murmeen aabahay iyo ayada, aabahayna wuxuu inoo ijaariyay hotel. habeenkaas kadib maalintii xigtay aabahay waa uu furay xaaskiisa cusbayd. maalmo kooban ayaa la soo dhaafay. aabahayna wuxuu mar kale guursaday xaas kale waliba asagoo weli qabo hooyaday. aabahay wuxuu marayaa xaaskiisii 3aad. midda koowaad waa hooyaday oo weli wuu qabaa. midda labaad waa la furay. midda 3aadna isla furiinkii kadib ayuu guursaday. haddeer aabahay wuxuu qabaa 2 xaas oo kaliya maadaama uu 1 xaas uu furay. xaaskiisa 3aad ahna xaaska cusub ayaa waxay haysataa 3 caruur. anigana markaan tago gurigiisa aabahay wuu iska keen indha tiri jiray oo caruurta kale ayuu daryeeli jiray. markaa kadib aabahay iyo xaaskiisa kale ee cusbayd waxaa ka dhex bilowday dagaal. way murmeen waxayna murmayeen ilaa habeenkii oo dhan. hadda aabahay iyo xaaskiisa cusub waxay leeyihiin 2 caruur oo dheeraad ah maadaama ay 2 caruur ay u dhashay xaaskiisa cusub. aabahayna wuxuu la halgamayaa inuu caruurtaas uu asiga masruufo. xaaskiisa cusub murankooda wuxuu sii socday ku dhawaad muddo 4 sano ah laakiin weli isma aynan furin oo waa ay isqabaan. haddeer anigu waxaan jirsaday 13 sano waxaana go'aansaday inaan gebi ahaanba joojiyo inaan tago guriga aabahay. waxaana samayn jiray cudurdaar ah inaanan aadi karin gurigiisa. aabahayna aad buu ugu xanaaqi jiray midaas maadaama aanan u tagayn. ku dhawaad sanad ma aanan tagin gurigiisa oo waan u cudur daaran jiray. sanad markii laga soo wareegtay ayaa mar kale aabahay wuxuu u weydiistay inaan aado gurigiisa. anigana waxaan ku dhahay maya kuma imaan karo maxaa yeelay 4 sano ee xuriyadiisa kadib ma aanan helin daryeel waalidnimo iyo galgacayl oo wax waliba waxa uu u sameyn jiray ilmihiisa kale. muuqaalkan halkan ayuu ku dhamaaday. waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka heshay. haddii aad muuqaalkan ka heshay ha ilaabin inaad ku soo biirto kanaalka Faraxlow adigoo taabanaya qoraalka gaduudan ee subscribe. sidoo kale aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga. muuqaalka xiga waxaan oo rajaynayaa anagoo faraxsan oo caafimaad qabna oo isu xisnay inaan soo laabano. mac salaama.